madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisa lagu wadaa maanta inuu ka horjeediyo labada gole ee baarlamaanka maamulka Soomaaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisa waxay noqonaysaa tii labaad oo ka soo wareegatay tii labaad oo ku soo beegmatay waqti xaalad siyaasadeed ay Soomaaliland wajahayso muran iyo dib u dhac ka jira doorashooyinka golaha wakiilada, golaha deegaanka, khilaafka xisbiyada iyo xukuumadda, wadahadallada hakadka ku jira ee Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo arrimo kale. labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ayaa shalay ilaa maanta shirar ku leh magaalada Hargeysa kuwa uga arrinsanayeen khilaafka cirka isku sii shareeraya ee ka dhaxeeya iyaga iyo waliba xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi. dowladda Turkiga ayaa qiratay in 4 ruux ay kaga dhaawacantay qaraxii Afgooye. inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmantay sida qaraxii ka dhacay degmada Afgooye. qaraxa oo la eegtay kolayo gaadiid shaqaalaha Turkiga ay saarnaayeen kuwaas oo ka howlgalayay dhismaha wadada u dhaxaysa ama xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. qaraxan ayaa ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay. war lagu baahiyay wakaalada wararka ee Turkiga laga leeyahay Anadolu ayaa waxay xaqiijinaysaa inay 4 ruux oo Turkiga ay ku dhaawacmeen halkaasi iyadoo xiganaysa saraakiil ka tirsan safaaradda Turkiga sida ay sheegtay. wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga ayaa waxay sheegtay in qaraxa lala beegsaday shaqaalaha Turkiga ay ku dhaawacmeen 4 ka mid ah shaqaalaha dalkaasi u dhashay. ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale weerarku khasaare ku soo gaaray, ha yeeshee lama oga inta uu la eg yahay. Al-Shabaab ayaa 28kii Diseembar ee sanadkii hore ee tagay waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarkii ay ku dhinteen 89 ruux oo ka dhacay isgoyska Ex-Control Afgooye. isna waxa uu sidoo kale bartilmaameedkiisu ahaa shaqaale ka tirsan Turkiga oo halka ka howlgalayay.